waxbarashadu waa furaha guusha iyo horumarka sidoo kale waa habka horumar lagu gaari karo dunidan casriga ah qofka aan aqoon diini iyo mid maadi ka dhisnayn waa qof dunida ka haray oo aan la jaanqaadi karin waxbarashadu waxa ay soo martay heerar kala duwan iyadoo waqtiyada qaar ay dhici jirtay in aqoon iyo waxbarasho si loo helo loo aadi jiray meelo fogfog oo boqolaal kiiloomitir ah halka maanta qofka isagoo gurigiisa jooga oo wax baran karo taasoo ay sahashay tiknoolajiyada casriga ah degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose waxa ay ka mid tahay deegaanada waayihii u dambeeyay laga dareemayay koror xagga waxbarashada waxa ay marar badan kaalmaha ugu horeeya ka gashay imtixaanaadka shahaadiga ah ee heer dawlad goboleed iyo dawladda federaalka iyadoo ay taasi ugu wacnayd dadaalka ay sameeyeen macallimiinta iyo ardayda maamulaha dugsiga hoose ee Doobale Abdullahi Sacad Ibrahim iyo macallin Asad Daahir Maxamuud oo ah maamulaha dugsiga dhexe sare ee Waamo ayaa ii sheegay in ay si isxilqaan ah ku shaqeeyaan oo aysan jirin cid xaaladooda hoos u eegta oo ka warqabta iyagoona wasaaradda waxbarashada dawlad goboleedka Jubbaland ka codsaday in ay macallimiinta siiso mishaar iyo tababaro joogto ah oo aqoontooda macallinimo kor loogu qaadayo si ay u soo saaraan jiil aqoon xambaarsan oo dalka waxtara magacaygu waa Abdullahi Sacad Ibrahim waxaan ahay maamulaha dugsiga hoose ee Doobale Primary School degmada Afmadow iskuulka Doobale waa iskuul in muddo ah dhisnay sanado badan dhisnay iskuulka waxa dhigata arday ugu yaraan ilaa 500 oo arday ah markay u yartahay ama ka badan iskuulka runtii waxa ka shaqeysa ilaa 9 macallin ayaa ka shaqeysa ardaydana waa iskuulka bilaawayo ardayda marka aad ogtiin caqabadaha faraha badan ee leeyihiin marka iskuulka la bilaawayo saas ay si tahay macallimiinta waxay ku shaqeeyaan wax la dhaho mishaar la'aan hadda arday wasaaradda ay bixiso laha oo ku filan ah ama mishaar ku filan hadda wasaaradda markaas Jubbaland ay noo qorsheysan laha ka macallin ahaan Afmadow waxaan ku shaqeynaa waa volunteer oo kala laakiin waxaan caawinaa community ama bulshada baan hadda jeer u taaganahay wasaaradda maamul goboleedka Jubbaland waxaan ka codsanaynaa inay macallimiinta siiso mishaar tayo leh sidoo kale macallimiintu waa inay siisaa tababar joogto ah أولا مقعي ومعنا أسد داهر محمود معمولها دوسيقى داحة سارة وامو دقمة أفمدو دقمة سيدة وحبرشدة واقي دولتي داحة وحايا هاي دقموينكا وغوهرية وحبرشدة مركي لفيريو عقابة بدن يبربركي يودنك وصامري الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى وحنو فودية هدنا إن waxbarashada dib loo bilaabo iyadoo marka aysan waxba saaciidaad ama maartay kaamo aysan ka heleynin nidaam dawlad iyo ama mid goboleed ha ahaado ama mid dhexe ha ahaato oo ku xiran yahay baahidiisa bulshada marka deegaanka ku nool badanaana waxbarashada maanta waxa weeye hay'ado hay'adahan aysan soo gaarin oo maaragtay mar walbaba cudurdaar ay ka dhiganayaan in magaalada aysan lahayn garoon diyaaradaha baasjeeriga ay ka soo degaan marka cid walbo uu gaaro baaqan oo ehel u ah in degmada waxbarashadeedii wax laga qabto oo ay ugu horeyso macallimiinta mishaarkoodii oo macallin maanta mishaar la sheegi karo ku shaqeeya aysan jirin duruufaha jira awgoodana ay ayaga isxilqaameen in deegaanka waxbarashadiisii aysan noqonin waxbarasho baabacda ama waxbarasho hooseese aysan noqonin waxaan ka codsanaynaa nin walba deegaankaas ka soo jeeda teetar walba ha lahaadee in arrinkaas loo kaco oo wax laga qabto Yaxya Ali Shukri Jubbaland TV Afmadow